وحمانت magaalada Ceelafweyn lagu soo dhaweeyay musharax xildhibaan Axmed Cabdikariin Ducaale Walhad oo sharaxan golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ka sharaxan xisbiga xaakimka talada dalka ay kulmiye musharax ayaa si balaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Ceelafweyn waxaana ka soo qayb galay soo dhaweyntiisa siyaasiyiin musharaxiin maayirka magaalada Ceelafweyn odayaal cuqaal dhalinyaro iyo waliba haween waxaana lagu soo wareejiyay waxaana lagaga hortagay musharaxa kantaroolka galbeed ee magaalada Ceelafweyn waxaana lagu soo galbiyay shaariicada waaweyn ee magaaladaas markii ay soo idlaatay galbinta ayaa waxa ay taageerayaashu soo biyushubteen xafiiska uu ku leeyahay magaalada Ceelafweyn waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay madashaasi geesta kale waxa uu xildhibaanku safarkiisa ugu sii watay ilaa magaalada Ceerigaabo halka ku soo dhaweynayna musharaxiinta degmada Ceelafweyn iyo gobolka Sanaag bay isugu jira oo uu hogaaminayo musharax Axmed Cabdikariin waxaanu halka saaka ku soo dhaweynayna degmada Ceelafweyn xafiiskii degmada Ceelafweyn musharax uga furaaban ku soo dhaweynayna waxaanu leenahay musharax ku soo dhawow degmadaadii Ceelafweyn ku soo dhawow gobolkaagii Sanaag ku soo dhawow dadkaagii aad musharax u ahayd ma bacd halkan waxaynu ku soo dhaweynaynaa xildhibaanada uu hogaaminayo Axmed Cabdikariin Ducaale oo u sharaxan golaha baarlamaanka iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo baanu hordaalkan ku soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waanu soo dhaweynaynaa waanuna u codaynaynaa innagana haddii aynu reer Ceelafweyn nahay dee halkan martiba ay noo joogto nimankan isagu waa reer Ceerigaabo xildhibaanaduna cod inaga rabaan laakiin Axmed Cabdikariin waa nin reer Ceelafweyn waa nin reer Kalshiikha codka wuxuu inoogu yahay inaynu codka siino soo diyaar uma tiidin Axmed Cabdikariin waxaanu ugu bushaaraynaynaa sida aynu maanta ugu soo baxnay inaynu codkiisana u siin doono oo aynu ugu soo bixi doono soo ballantu sidaa ma aha waxa weeye wax badan baynu codkeena biyo raacinay wax badan baynu miidaan dayin wax badan baynu ku guul dareysanay laakiin maanta insha Allah bilmillaahi kariim musharaxiinta inoo ka sharaxan gobolka ee degmada Ceelafweyn ilaa heer gobol waxa ballan inoo ah inagoo kulmiye ah oo isku duuban oo isku mid ah oo aan magac kala lahayn oo aan qabiil kala lahayn oo aan qolo kala lahayn inaynu ku soo saarno codkeena iyo xuduudeena habeen iyo maalinna ilaa inta laga gaarayo hadii ilaahay raali ka noqdo ilaahay waqtiga inoo saamaxo 31 May inaynu u taagnaano soo ballan inoo ma aha marka labaad waad maasantiin dhamaantiin dadka nagala soo qayb galay xafladda halkan waa socotaan musharaxiin badan baa joogta golo deegaan iyo golo baarlamaanba maxay ahaatay halkan laba musharax oo isku sidkanayeen maanta xafiiskooda ka hadlayno waxa weeyaan xildhibaan Axmed Cabdikariin iyo xildhibaan Maxamed Cawaale ومن نقول ديان كعرقابة كشرحين هاي بدنا Ceelafweyn إلى عرقابة كشرحين هاي كاران ديان كيسو Ceelafweyn هاي تدوينه واحد تدويننا ما دام إنه هاي ضد غير كل مياه ما دام إنه هاي ضد اسمه حلفاء دينا حلبان كن أتسيسان عتكة وإحنا كنا نسوي نقصد دويني دينا دقينا غير Ceelafweyn مشارحة قلها برلمان كأي مشارحين تلصقتها دقمة عرقابة كشرحان أحمد عبدكريم ومشارح قبل كسناق مشارحين قبل كسناق وأنا مشارحي بيش بحصنبور أيسكو راعي إني سق دورته مركا إن شاء الله تعالى وأقول السنة يا مر هذه بيش دمانت بموافقة دي بيش سق أي صارتي بيشو وأقول السنة يا أحمد عبدكريم وحي وسيجارة مانتا ومشارح Ceelafweyn buu ku koray Ceelafweyn bisuul ka dhaxay ilaa kaga baxay deegaankiisuna waa Kalshiikh oo degmada Ceelafweyn ka tirsan dadkiisa iyo deegaankiisa dhan baa jooga reer Ceelafweyn sidaas ay u heleen codku naga dhaxayo sida darteed si wanaagsan baad noo soo dhaweyseen waxaan rajaynayaa sida aad maxaan ku raadaan nin baa aas ka sheekayay oo yiri warninka si wanaagsan baa loo aasay oo maxaan ku raadaan aad baa looga soo qayb galay oo aad iyo aad baa waxaan ku dhigay aaskaas waxa aas heer qarana إنبا هالك هذا وحي واحد يحنك راعة واحد راعة محاك لها هذا عدك راعة سود وين تنقروح بدنا سود ويسين وين عدك راعة إن شاء الله. Ceelafweyn هذه عاد بندي سلامة يا سيدا نوس سود ويسين نوان كم هذا علينا يا وسيقو بني رنتي Ceelafweyn والله يقانا سيدا الله شاقينا أنا وحكا شرحنا يقولها وكيل لذا وحنا يقول يتكلم مشرحه ومدين عيقة تاجي محمود عوالة iyo Siciid Jibril Xasan oo imika maqan ayaa magaranaysaa aanu isku sidkanahay anigu waxaan ahay markaa xildhibaan gobolka oo dhan cod ka doonaya
markaa nasiib wanaag anigu horta waxaan isleeyahay xildhibaanada gobolka ka sharaxan oo dhan inaan ugu nasiib badan baan u haystaa waxa taa keenaysa anigu ceelaf weyna waan ahay Ceerigaabana waan ahay haddii Bosanbuur cod siisay reer ceelaf weyna cod baan ka helayaa waan ogahay waayo waxa weeye nin reer ceelaf weyna baan ahay sida la sheegay reer ceelaf weyn baan anigu ahay halkan aan ku barbaaray garoonka yar baan kubadda ku ciyaari jirnay carruurnimadeedii ceelaf weyn kamay maganaysa maan ilaawin dad badan oo halka imika garan maayo reer ceelaf weynkii hore ah suldaanka iyo cabdiraxiin aw yuusuf iyo maxay tahay dhowr qof baan imika garan reer ceelaf weynkii hore intiina kalena kolley waynu isbaran doonaa wajiyadii cusubna waxa weeye waa isbaran doonaa odhan maayo markaa anigu waa ay garanaysaa reer ceelaf weyn idin odhan maayo waxaan idin odhanayn dee shaqo isugumaynaan iman laakiin waxaan idin leeyahay waynu isbaran doonaa waxaan leenahay waynu isbaran doonaa waxaana sidoo kale lagu soo dhaweeyay magaalada Kalshiiq halkaasi oo magaalada Ceelaf Weyn iyo Kalshiiqba uu ka furay xafiis isla markaana xariga ka jaray xildhibaan Axmed Cabdikariin Ducaale iyo xildhibaanka golaha deegaanka degmada Ceergaabo Maxamuud Cawaale waa la maqlayaa xildhibaanka golaha deegaanka degmada Ceergaabo Maxamuud Cawaale iyo wafdidan la socotay maayirka degmada Ceelaf Weyn xildhibaan Iimaan Cabdi Cabdullaaw degmada Ceelaf Weyn iyo dadkan wafdidan kale la socota iyo dadweynaha reer Kalshiiq oo soo baxay inay soo dhaweeyaan intaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka baan idin salaamayaa de kolley waynu isgaranaynaa sharaxaad kale uma baahnin intii aan gobolka joogay aan halkan marmarayna waan idin dhaafay waan ogahay taa de waxaana idin dhaafay hawl kale culus baan waday oo de meelaha fogfoga isku halayn un bay ahayd imikana si rasmi ah isugu imanayna hadii la yiraahdo imika waanu degdegaynaa kolley dad baa bacad noo 10 yifleeyo Ceergaabana la ka sugaya labadaba waa Maxamed Abaadir Bulsha TV Ceelaf Weyn